الرحيم. waxaan saaka kula kulannay xafiiskiisa wasiirka diinta iyo waqaafta sheekh waxaad nooga warantaa waxa jira sidaan maqalay muxuu ahaa dad tabaalaysan oo aad raashin u qaybinaysay arrintaasi ballayada faahfaahin laga siiyay arrintaas ka hadli kari maayo waa dadka wadada waxbaa la qaybinaya anagu waxbaanu qaybinay ma qaybinee guddidan abaaraha ee guddoomiye uu yahay madaxweyne xigeenku ayaa qaybinaysay oo taakuleyntaas lagu caawiyey oo dadka maaragtay tabaalaysan loo helay ayay ahayd marka Soomaalidu waxay tiraahdaa meel wax loo wadada wax qaybinayso meel wax loo qaybinayo maxay hayeen musaabixiyada ku bixisay runtii waan ka taxafulaynaayoo dadkii baahan xilligaasi way gaareen gobolada degmooyinka oo dhawaal gaarsiiyay markaa mid Hargeysa ku kooban baa mise mid goboladii degmooyinka dalka oo dhan wada gaarsiisay markaa intii qiyaas xad intee leeyahay ayaa raashinkaas siiyay تقريبا wuxuu gaaraya ilaa 10 kun oo qoys gaaraya horna wala washada madaxweynaha hore saxaafadda soo geliyay wax cusub maaha oo madaxweynaha ka hadlay maxaad ummadda Soomaaliland faraysaa waxaan farayaa la ka baqaan ilaahay ka cabsadaan oo mushkiladda haysata waxa weeyaan waa mushkilad runtii ay sabab u nahay oo ka waraysan maanta caalamku meeshu marayo gaaladii dhibaato ku dhacaysa iyo wax haysta Japan waa kasoo xaqay muddo soconaya aafaadkii ugu yaraa ay nagu dhacay oo ah in Europe aan inkastoo ka taagnaay haddana yani maartay inta yare bilaanta waxa ay muslimiin ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin waxa weyn in ilaahay loo toobad keeno subhanahu wa ta'ala oo ilaahay loo laabto dulmiga la iska ilaaliyo la istaakuleeyo la iscaawiyo waayo markaas caawiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caawinayo inuu naxariisanayo waxa kaloo aad ka far lahayd inay wanaagga ku dadaalaan ذلك لم يكن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى wuxuu sheegayaa in dadku aanay laga saarin dhibaatada iyo xumahay ku jiraan ilaa ay ka laabtaan xumahay ku jiraan wanaag soo noqdaan taasoo runtii waa keenaysa ilaahay inuu naxariisto waa mahadsantihiin saacad wasiir intii aad wasaaradda joogtay waxaa ka muuqata isbedel baa wasaaradda ka muuqda isbedelkaasi bal wax nooga yar taataabo wallahi kullay wasaaradda cusub baa nimi dadaal waan dadaalayna inta ay ku arkaysana way ku filan tahay waana runtii wasaarad intii joogtay oo culimada ahayd inta hadda joogtay ku soo jirtay iswaa kaashanaysa isgarabsatay dadweynaha noo golaha cilmiga sida fiican ay maartay ay noogu taakuleeyeen ay wax wada qabtay oo ahayd runtii in maxaan raadayay wasaaradda xukuumad ahaan oo niyadna ku haysay in wasaaradda kor u qaado tayadeeda iyo hawlaha qabanayso dadweynuhuna waa lagu gargaray waxa soo wanaagana kaliya ma lihin laakiin dawladda iyo dadweynaha ayaa iyagana ilaa kasta ku mahadnaqaya wadna santa Sheekh Khaliil kaas wuxuu wasiirka diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil oo aan maanta xafiiskiisa ku wareysay